waxaynu ku bilaabaynaa warar iskhilaafsan iyo hadallo kala duwan oo ka soo baxaya markab maalinimadii shalay lagu qafaashay xeebaha Puntland. Haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurahani aynu ka soo ururinay. Wararkan iskhilaafsan iyo xaaladda shakigu ku gadaaman yahay ayaa ka soo baxaya xamuulka uu sido iyo halka uu ku wajahnaa markab lagu qafaashay xeebaha Puntland ee waqooyiga bari ee Soomaaliya. Markabka Lotof oo wata calanka Cameroon ayaa 17 bishii Agost waxaa laga afduubay xeebaha u dhaxeeya gobolada bari iyo Nugaal, iyadoo ay jiraan warar aan la xaqiijin oo sheegaya in markabka uu sido agab military iyo qalab dhisme oo Turkiga laga soo raray kuna wajahnaa magaalada Muqdisho. Hay'adda amniga badaha UK ee magaceeda loo soo gaabiyo UKMTO ayaa sheegtay in 8 nin oo hubaysan ay fuuleen markabka kadibna ay la wareegeen maamulkiisa meel qiyaastii 4 mayl badeeda koonfurta ka xigta xeebaha Soomaaliya. Shirkadda arrimaha sirdoonka badaha ee Marxis ayaa waxay sheegtay in markabka la qafaashay uu yahay Lotof, waxaana ay sheegtay in xogta safarkiisu ay muujinayso in 24kii bishii hore ee Juulaay uu ka soo baxay dekedda Tekirdağ ee dalka Turkiga, waxaana markabka sida u qorshaysan u socday dekedda Dar es Salaam ee dalka Tanzania sida diiwaangelinta ay ka muuqato. hase yeeshee ilo wareedyo iyo warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaya in markabku dhab ahaan uu ku socdo Soomaaliya isla markaasina uu sido agab military. sheegashadaasi weli si madax bannaan looma xaqiijin. warar kale oo aan la xaqiijin ayaa sheegaya in 4 ka mid ah dableydii markabka qabsatay la dilay kadib markii markabka ay ka degeen iyagoo doon yar u sii socda dhanka xeebta ayaa waxaa la sheegay in gantaal uu ku dhacay doonida. lama oga cidda weerarka fulisay. waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in diyaarado ay dul heehaabayaan markabka. ilaa iyo hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya, maamul goboleedka Puntland, dowladda Turkiga iyo shirkadda markabka iska leh midkoodna si rasmi ah uma xaqiijin xamuulka markabka uu wado iyo sidoo kale wararka ku saabsan dilka 4 nin ee lagu eedeynayo in markabkan ay qafaasheen. waa hagaag wixii warah ee arrimahan ay ku soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allah idmo. haatanna aynu eegno dhanka Itoobiya. xiisad iyo dhiilo colaadeed ayaa laga soo sheegayaa waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigreega. haddaba wararkii ugu dambeeyay amuurahani, maamulka gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in weerar duqayn diyaarad daroon ah loo adeegsaday ay ka fulisay meel u dhow magaalada Maqale xilli ay sii kordhayso xiisadda labada dhinac u dhaxaysa. maamulka Tigreega ayaa qoraal uu baraha bulshada ku daabacay waxa uu ku sheegay in diyaarad daroon ah ay duqaysay xarun lagu tababaro beeraleyda oo ku taal tuulada Dandera oo qiyaastii 15 kilomitir u jirta magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigreega. jabhadda xoreynta shacabka Tigreega ee magaceeda loo soo gaabiyo TPLF oo maamusha gobolka ayaa sheegtay inaan wax khasaare ah uusan ka dhalan weerarka, iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah la bixin. hase ahaatee baadari deegaanka ku sugan oo magaciisa qariyay ayaa wakaaladda wararka ee AFP ee Faransiiska laga leeyahay waxa uu u sheegay inuu arkay hal dagaalame oo weerarka lagu dilay iyo sidoo kale gaari lagu qaaday, isagoo intaasi ku daray inuu rumaysan yahay 2 qof oo kale inay dhaawacmeen. baadariga ayaa sheegay in gantaalku uu ku dhacay dhul beereed ku dhow iskuul iyo goob ay xoolaha beeraleydu biyaha ka cabaan. xiisada u dhaxaysa Tigreega iyo Addis Ababa ayaa toddobaadyadii u dambeysay sii xoogaysanaysay, iyadoo labada dhinac lagu soo waramayo inay ciidan ururin ka wadaan xuduudaha gobolka. labada dhinac ayaa sidoo kale waxay isku eedeynayaan in qolada kale ay doonayso inay bilowdo dagaal cusub wax ka yar 4 sano kadib heshiiskii nabadeed ee soo afjaray dagaalkii Tigreega oo dad badan ay ku dhinteen.
ciidamada dowladda federaalka Itoobiya wali kama aysan hadlin eedaynta ka timid dhanka maamulka Tigreega. waa tahay warkaas inta aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha colaadeed ee gobolka bariga dhexe imaaraadka carabta oo caawa sheegaya in Iiraan ay soo weerartay isla markaasna tilaabo qaaday dhanka Iiraan warar baan kaga haynaa iyo sidoo kale Mareykanka iyo warar hadda soo dhacay intaan u gudbin dhammaan macluumaadkaas aynu ku hakanno qadar xayeysiina intaan u gudbin wararka qadar ogeysiisa kanaalkeena kale ee RTV waxaan goordhowta soo gelinay sheeko xiisa leh oo ku saabsan boqorkii masiixiga ahaa ee reer Yurub ee lacagtiisa ku qoray magaca alle iyo rasuulkiisa salawaatullaahi calayhi wasalaam. arrinta waa qiso cajiiba. lacagtii boqorkan oo ka talin jiray waddanka Ingiriiska ayaa waxa ku qoray laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah. haddaba sheekada sida ku timid iyo sababta lacagtiisa ugu qortay kelmadaas qiimaha weyn waxaan ku faahfaahinaynaa barnaamijkaasi ee daawo markii aad dhamaysato barnaamijkan isla markaasna ha ilaawin inaad la sii wadaagto asxaabtaada aadna ku soo biirto kanaalka RTV oo aad ka helaysaan macluumaadyo kala duwan waxa caalamka ka socda taariikhda hore ee islaamka taariikhda Soomaalida iyo sidoo kale barnaamijyo faahfaahsan iyo falanqayn adduunka waxa ka socda hawdayma la'aanina waana mahadsantihiin mar kale xagga Iiraan haatan aynu eegno oo qaaday tilaabo culus oo Faransiiska ka dhana warbaahinta waddanka Iiraan ayaa waxa ay soo tibinaysaa in Iiraan maanta ay go'aan ku qaadatay laba diblomaasi oo Faransiis ah in loo jaro persona non grata waxa loo yaqaan ama inaan dalka laga doonayn iyadoo laga mamnuucay inay soo galaan dhulka Iiraan kadib markii lagu qabtay goob uu ka socday kulan qarsoodi ah intii lagu jiray baaritaan la xiriira amniga qaranka. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in diblomaasiyiinta oo ka shaqeeya safaaradda Faransiiska ee Tehraan ay ku kaceen falal iyo dhaqamo sharci darro ah oo jebinaya qawaaniinta caalamiga gaar ahaan heshiiska Vienna ee xiriirka diblomaasiyadda ee qalinka lagu duugay 1961. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in ay go'aansatay in diblomaasiyiintaasi lagu dhawaaqo inay yihiin shakhsiyaad dalka aan laga doonayn lagana mamnuuco inay Iiraan soo galaan dhowr toddobaad kadib markii falalkaasi la ogaaday iyadoo sheegtay in dowladda Faransiisku aysan qaadin wax tilaabo ah oo looga hortegayo soo noqoshada dhaqamada caynkaasi ah. 15 bishan Agoost wasaaradda sirdoonka Iiraan ayaa ku dhawaaqday in laba diblomaasi oo Faransiis ah lagu qabtay goob uu ka socday kulan qarsoodi ah intii lagu jiray baaritaan la xiriira amniga qaranka. xagga Imaaraadka Carabta dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in laba gantaal oo nooca balastiga ah oo ka yimid Iiraan ay ku soo dhaceen mid ka mid ah meel ka baxsan biyaha dalkaasi iyadoo lagu soo waramayo gantaalka labaadna inuu ku dhacay biyaha gobolka. ma jiro war ka soo baxay dhanka Iiraan oo ku aadan sheegashada Imaaraadka. dhinaca kale dowladda waddanka Imaaraadka Carabta ayaa caawa ku dhawaaqday in ay si buuxda u joojisay xiriirkii ganacsiga iyo lacagihii isaga kala gudbi jiray Imaaraadka iyo Iiraan sababtuna ay tahay weerarkan. xagga Iiraan haddii aynu jaleecno General Mustafa Izadi taliya ku-xigeenka ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa daboolka ka qaaday in Mareykanka Hormuus uu gacanta ugu jiro ciidamada Iiraan. wuxuu yiri cadowgu ma garanayo waxa uu sameeyo wuxuuna ku jira xaalad awood darro ah. xagga Mareykanka sarkaal Amerikaan ah ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera inaysan jirin wax iska horimaad ah oo ka jira hadallada maamulka Mareykanka ee ku saabsan wada xaajoodida Iiraan. wuxuu intaasi ku daray in wada hadallo wanaagsan lala yeeshay Iiraan balse madaxweyne Trump uu go'aansaday inuu sugo. wuxuu intaa ku daray in Trump uu kooxdiisa ka dalbaday inaysan wada hadallo dheeraad ah la gelin Iiraan ilaa ay diyaar u noqonayso heshiis. isla wararka Mareykanka wasaaradda cadaaladda ee dalkaasi ayaa sheegtay in 17 muwaadin oo Iiraaniyiin ah lagu soo oogay dacwado la xiriira oo lala balaaran
oo xog lagu xaday kaas oo loo adeegsaday weerar dhanka internetka ah wasaaraddu waxay daboolka ka qaaday in eedaysanayaashu ay bartilmaameedsadeen 144 jaamacadood oo ku yaala Mareykanka 178 jaamacadood oo ku yaala wadamo kale iyo 42 shirkadood iyo hay'ado dawladeed eedaysanayaasha ayaa waxaa lagu eedeeyay inay xadeen in ka badan 31 terabytes oo xog tacliimeed iyo weliba hanti aqooneed wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in qaar ka mid ah howlgallada jabsashada la fuliyey si looga faa'iideysto ama ay uga faa'iideystaan ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan wararka bariga dhexe aynu ku sii soconnay markab xamuul ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu dhuftay walxa aan la aqoonsan meel 40 mayl koonfurta bari kaga xigta magaalada Makha ee waddanka Yaman sida ay sheegayso hay'adda Britain u qaabilsan amniga badaha ee magaceeda loo soo gaabiyo UKMTO UKMTO ayaa waxay sheegtay in markabka oo aysan wax shaqaalaha saarnayn xilligii dhacdada uu la kulmiyay ay markaasi jirto in burbur kooban uu gaaray laakiin waxa la yiri ma aha burburko mid gab ahaanba soo gaaray markabkaasi waa tahay wararkaasna inta aynu kaga gudubno haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay aalaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeka ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen sheekadan waxay ku saabsan tahay wiil 18 sano jir ah ayaa wuxuu noqday macallin jaamacadeed wuxuu noqonayaa ardaygii ugu da'da yaraa ee jaamacad baraka noqda aynu eegna warkan iyo waxa warbaahinta Mareykanku ay ka qorayso Nathan Thomas oo u dhashay waddanka Mareykanka ayaa dhigay rikoor caalami ah kadib markii isagoo 18 jir ah uu noqday macallinka jaamacadeed ee ragga ugu da'da yar dunida sida uu diiwaan gelinayo buugga waxyaabaha dhif iyo naadirka lagu diiwaan geliyo Thomas wuxuu bishii Agost 2023 isagoo 18 sano jir ah ayna u dheertahay 346 maalmood macallin uu ka noqday Miami Data College ee gobolka Florida halkaasi oo uu ka dhigayay maadooyinka injineernimada kombiyuutarka iyo barnaamijyada geeniska waxaana rikoorkiisa u noqday mid si rasmi ah loo shaaciyay sanadkan 2026 safarkiisa waxbarasho ayaa isna mid aan caadi ahayn Thomas wuxuu koorsooyin jaamacadeed bilaabay isagoo 10 sano jir ah wuxuuna markii dambe u wareegay Florida International University isagoo 14 jir ah ka hor intuusan 19 sano gaarina waxa uu horay u sii qaatay shahaadada bachelorka iyo sidoo kale masterka ee electrical engineering Thomas oo hadda 21 jir ah wuxuu weli dhigaa koorsooyinka online-ka isla markaasna wuxuu bartaa sharciga jaamacadda ee Miami School of Law waxaana uu qorsheynayaa inuu mustaqbalka ka shaqeeyo sharciga hantida aqooneed gaar ahaan dhinacyada sayniska iyo tiknoolajiyadda waa tahay dadaala uu gaara baa dhiriye inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii oo aad ku bahasatihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir وعينو برنامج كحيقة إن شاء الله وإنت كهر رئيسة سلام الله عليكم ورحمة الله